maanta waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda nuclear-ka ee Iran kadib markii saddexda wadan ee reer Yurub ee Britain, Faransiiska iyo Jarmalka oo qayb ka ahaa heshiiskii arrimaha nuclear-ka Iran ee 2015 ay ku dhawaaqeen in ay dib u soo celin doonaan cunaqabatayntii ayaa dowladda Iran waxa ay ku dhawaaqday in ay ka fakarayso inay ka baxdo heshiiska xakamaynta faafitaanka hubka nuclear-ka ee magaciisa loo soo gaabiyo NBT. haddaba war ay soo tuurtay goor dhaweyto wakaaladda wararka ee Tasniim ee laga leeyahay Iran ayaa waxaa lagu sheegay in ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga sagaashanaad ee baarlamaanka Iran Hussein Ali Haji Dalegani uu shaaciyay in la bilaabay qoraalka mooshin degdeg ah oo ku saabsan ka bixitaan buuxa oo Iran ay ka baxayso heshiiskaasi NBT. Dalegani waxa uu farta ku fiiqay in hindisa sharciyeedkaasi loo gudbin doono xeer hoosaadka baarlamaanka maanta oo Jimcaha si loogu daro wadada qaanuun ee dooda iyo codbixinta fadhiyada guud ee toddobaadka soo socda sida ay ku waramayso Tasniim. Haji Dalegani ayaa sidoo kale ka hadlay howlgelinta habka cunaqabataynta lagu saarayo Iran wuxuuna yiri sida la filayay saddexda dal ee Jarmalka, Faransiiska iyo Britain waxay ku dhawaaqeen dhaqaajinta habkan. dalalkani waxay mar horeba nagu dabaqayeen cawaaqibta habkan oo ay ku jirta cunaqabatayn xitaa ka hor intaa si rasmi ah loo shaacin mana aha buu yiri wax cusub. Dalegani ayaa si xooggan u dhaliilay waxqabadka kooxda diblomaasiyadda Iran iyo wasiirka arrimaha dibadda ee la macaamilka dalalkan isagoo ku tilmaamay wadahadaladii hore iyo xiriirka la yeeshay wadamadaas inay ahaayeen wax aan faa'iido lahayn oo kaliya suurtageliyay in saddexdan dal ay sii wadaan dhaqankooda. gudoomiye ku-xigeenka guddiga sagaashanaad ee baarlamaanka Iran wuxuu carabka ku adkeeyay in baarlamaanku uu horeyba u bilaabay qorista hindisa sharciyeed degdeg ah oo ku saabsan ka bixitaan buuxa oo Iran NBT ay ka baxayso isagoo tilmaamay in tilaabadani tahay falcelinta ugu fududa uguna aasaasan waxa dhacay. waxa intaasi uu ku daray in baarlamaanku uu qaadi doono tallaabooyin kale oo mustaqbalka ah oo ka dhigi doona saddexda dal ee cadaadiska saaray Iran inay ka shallaayaan. Dalegani wuxuu sheegay kadib tilaabadan ay qaadeen saddexda dal ma jiri doonto wax macno ah oo wadahadalada lagu sii wado sababtoo ah buu yiri sii wadista doodaha waxa kaliya horseedi doonaan waa in ay sii dhiiradaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Noël Barrot ayaa Khamiistii shalay wuxuu ku dhawaaqay in dalkiisa Britain iyo Jarmalku ay howlgeliyeen habka u saamaxaya dib u soo celinta cunaqabataynta qaramada midoobay ee ka dhanka Iran isagoo ku sababeeyay in aan la ogolaan karin korarka nuclear-ka sida dalka u dhigaya. saddexda dal ayaa warqad rasmi ah waxay u qoreen golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyagoo ku wargeliyay go'aankooda. warqadda ayaa waxa ay muujinaysaa in saddexda dal ay doonayaan in 30 maalmood gudahood ay ku xalliyaan arrimaha taagan ee ay la leeyihiin Iran isla markaasna ay sii wadi doonaan dooda ku saabsan soo jeedinta Iran ee kordhinta qaraarka heshiiska nuclear-ka ee 2015. waxay ku baaqeen in Iran ay ku lug yeelato diblomaasiyad wax dhisaysa si looga saaro walaacyada la xiriira barnaamijkeeda nuclear-ka. Faransiiska, Jarmalka iyo Britain ayaa siiyay Iran ilaa iyo dhamaadka bishan August inay tallaabo ka qaado barnaamijkeeda nuclear-ka si looga fogaado soo celinta cunaqabataynta qaramada midoobay iyadoo heshiiska lagu qaaday cunaqabatayntana uu dhacayo 18 bisha Oktoobar ee sanadkan. saddexda dal ee reer Yurub iyo shuruudaha ay soo jeediyeen ee Iran laga doonayo in ay fuliso waa tan koowaad dib u bilaabidda wadahadalada Tehran ay la lahayd Mareykanka ee heshiiska nuclear-ka. qodobka labaad in kormeerayaasha hay'adda IAEA loo ogolaado gelitaanka xarumaha nuclear-ka ee Iran iyo qodobka saddexaad oo ah in la helo gelitaan buuxa oo ku saabsan xogta kaydka 60% uraniumka Iran ay bacrimisay. dhinaca kale Tehran iyana waxay la timid shuruudo kale ah in wadahadalo aan cadaadis ahayn la galo in la helo damaanad in ciidan ahaan aan lagu beegsan doonin inta lagu jiro wadahadalada iyo in la helo magdhow dhaqaale oo ku aadan waxyeeladii
weeraradii Maraykanka iyo Israa'iil ee bishii June iyo in la aqoonsado xaqa Iiraan ay u leedahay inay bacrimiso uranium dhulkeedana ku bacrimiso. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa dhawaan shaki geliyay in wadahadal lala galo maamulka Maraykanka isagoo sheegaya in ugu yaraan mid ka mid ah shuruudaha Yurub ay tahay wax aan suurtagal ahayn in la fuliyo. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa talaadadii saddexda dal ee Yurub ku tilmaamay tillaabadooda mid sharci darro ah oo aan la aqbali karin, isagoo ka shaqeeyay in dalkiisu si habboon uga jawaabi doono si uu ilaashado xuquuqdiisa iyo danihiisa qaran. wuxuuna rajo ka muujiyay in saddexda dal ee Yurub ay dib uga fiirsadaan go'aankooda qaldan maalmaha soo socda. haddaba maxay yihiin xulashooyinka Iiraan u furan ama ikhtiyaaraadka ay qaadi karto? tilaabadan ayaa waxay dhalisay su'aalo ku saabsan ikhtiyaaraadka Tehraan ay samayn karto. waxaa ka mid ah in la yareeyo iskaashiga lala leeyahay hay-adda IAEA, in gebi ahaanba Iiraan ay ka baxdo heshiiska NPT ee xakamaynta faafitaanka hubka nukliyeerka, in la sii wado wadahadalka iyo diblomaasiyadda 30 maalmood ee Yurub furtay si loo muujiyo daacadnimo. waxaa xusid badan in saddexda Yurub ay kulan ka dhacay Geneva talaadadii ku soo bandhigeen soo jeedin ah in la kordhiyo qaraarka caalamiga ah laguna kordhiyo 6 bilood, taas oo lagu bedelanayo iskaashi buuxa oo Iiraan ay la yeelato hay-adda IAEA, taasi oo noqon karta fursad Tehraan ay kaga badbaado cunaqabatayn cusub ka hor inta uusan dhammaan heshiiskan bisha Oktoobar. dhacdooyinkan ayaa waxay imaanayaan iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay lagu wado maanta inuu kulan ka yeesho dooda ku saabsan go'aanka Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ee dhaqaajinta in dib loo soo saaro cunaqabataynta ka dhanka ah Iiraan. dhinaca kale Ruushka iyo Shiinaha ayaa iyaguna waxay diyaariyeen qaraar cusub oo ku baaqaya kordhinta heshiiska nukliyeerka ee Iiraan. waxaa la filayaa maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay in maryo dhiig leh lagu kala furto bacdama saddexdan wadan ee reer Yurub, inkastoo Jarmalku uusan qayb ka ahayn golaha ammaanka, laakiin Maraykanka oo ku beeri doona in saddexdaasi wadan ay si weyn Iiraan culays u saaraan, halka la filayo Shiinaha iyo Ruushku qabadka inay u garaacaan Iiraan. haddaba wixii ka soo kordha wacdaraha maanta iyo fadhiga golaha ammaanka barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo. waa tahay markana bal aynu qoraansanno xiisada ka aloosan badda Kariibiyaanka, halkaasi oo lagu soo warramayo Maraykanka inuu ku sii daabulayo ciidamo iyo maraakiib dagaal, iyadoo la sheegayo Venezuelana inay ka jirto dhiilo colaadeeda, dadkuna qoryaha ay qaateen si ay uga hortagaan duulaanka Maraykanka. madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in dalkiisa aysan soo geli karin ciidamo shisheeye, iyadoo xaaladdu ay ka sii darayso gaar ahaan xiisada u dhaxaysa dalkiisa iyo Maraykanka kadib markii Donald Trump ku dhawaaqay in ciidamo u diri doono biyaha Kariibiyaanka. Maduro oo ka hadlayay xaflad military oo ka dhacday magaalada Caracas isagoo xiran dhar ciidan ayaa si toos ah waxa uu uga hadlay suurtagalnimada faragelinta Maraykanka, wuxuuna yiri ma jirto waddo ay ku soo geli karaan Venezuela, isagoo ku tilmaamay cadaadiska socda in uu xoojiyay dowladdiisa. Maduro waxa uu tillaabada cusub ee Maraykanka ku sifeeyay in ay tahay go'doomin iyo dhibaatayn ka hor imaanaysa axdiga qaramada midoobay, isagoo ku doodaya in tillaabooyinkaasi ay hadda wejigabax ku keeneen Maraykanka. maanta kadib 20 maalmood oo go'doomin aan kala joogsan ahayn, waxaan ka xoog badannahay shalay, waxaan leenahay taageero qaran iyo mid caalami ah oo ah mid ka badan tii hore, ayuu yiri madaxweyne Maduro. wuxuu u mahad celiyay madaxweynaha Colombia Gustavo Petro kadib markii uu amray 25,000 oo askari in la geeyo gobolka Catatumbo ee Colombia, isagoo ku tilmaamay tillaabadaasi mid Venezuela iyo Colombia u midoobayaan nabad ilaalintooda dhulkooda. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa amray howlgal military oo ballaaran oo ka dhan ah waxa ugu yaray ka ganacsiga daroogada ee Latin America, taas oo keentay in ciidamo badeed la geeyo Kariibiyaanka oo ay ku jiraan maraakiibta badda quusa iyo 7 markab oo dagaal. saraakiil ciidan oo Maraykan ah ayaa u sheegay telefishinka CNN ee fadhigiisu yahay Maraykanka in sidoo kale 4,000 oo askari oo ciidamada Mariniska la geyn doono gobolka. Maduro
oo ay weheliyaan wasiirkiisa gaashaandhigga Vladimir Badarina Lopez iyo saraakiil kale ayaa bishii hore ku dhaartay in ay difaaci doonaan madax bannaanida Venezuela isagoo sheegay inay lama taabtaan tahay qarannimada iyo wax uu ku sheegay dhulka barakaysan ee dalkaasi amaba guud ahaan koonfurta Amerika. ku soo dhawow xarunta Al-Hidayah Academy aan step ahead tushin haddii horay iyo hadeerba carruur alle kuu hibeeyo tacliin waa lama huraan aqoonta hidaaya kaalay hibada xifdiga iyo quraanka hal haysta rabiyada fiican aqoontoon kala haraynba ileen mahuraanba weeye u kaalay hidaaya kaaba xarunta Al-Hidayah Academy aan step ahead tushin ee magaalada London waxay bixisaa adeeg waxbarasho dhameystiran oo loogu talagalay carruurta dhalinyarada iyo dadka waaweynba xifdinta quraanka iyo dhisidda akhlaaqda suuban iyo xiisadaha maadiga ahba sida tushinka ilmaha iyo koorsooyin Ingiriisha oo dadka waaweyna waa ku diyaar haddaba fasalladu way xadidan yihiin xaruntu waxay ku taallaa xaafadda Harleston ee waqooyiga galbeed ee magaalada London kala xiriir telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka qaliijka Yurub iyo Mareykanka aad ka helayso magaalada Muqdisho Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah iyadoo la hubiyay badqabka caafimaadka xoolaha hadda dalbo hilib geel lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama wac nambarka ku muuqda